السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكان waa barnaamijka haweenka horumarinta haweenka marka aad haweenka horumarisid waxa siisay fursad wanaagsan oo ay caruurtooda bari uga hagaan mustaqbal ifaya. horumarinta haweenka basically waxay ka soo bilaabataa guriga hooyo iyo aabe si uu salaamida u geey caruurtaada dugsiyada marnaba ha ugu eexan gabadhaada wiilasha. dabcan boqolkiiba 75 Soomaalidu waa dhalinyaro. dabcan meeqa noqon karta dumar 75 kaas number badan ayaa dumarka way ka badan yihiin ragga sidaan ognahay. marka haddii aan dumarkeena horumarino waxaan horumarinay caruurteena barito waayo dumarka maanta ama gabdhaha maanta waa hooyooyinka barito. caruurteena ay u noqoto caruur kobacsan waa inaan ka fikirnaa hooyooyinkeena si aan u horumarino. dabcan in haweenka wax la baro oo bulshada wax uga faa'iideeyaan waa midda bulshada horumarisa ama kobcisa bulshooyinka sidaan ognahay. dabcan inkastoo haweenka qaarkood ay wax bartaan haddana ma ahan kuwa badan. sababta ugu weyn ee loo aaneynayna waxay tahay in markii hore waalidka ay u eexdeen wiilasha. waxaan aaminsanahay dabcan in dumarka Soomaaliyeed qofnaan iyo karti ay dheer yihiin dumarka asaagooda iyo dunida kula nool. balanteenu waa awoodsiinta gabdhaha Soomaaliyeed waayo waa hooyooyinka barito ama wax soo saarka barito ee dalkan. in haweenka wax la baro oo bulshada wax uga faa'iideeyaan waa mid bulshada horumariso dumarka Soomaaliyeed. marka anagu fursadaas dabiiciga ah ee Ilaahay u sameeyay anagu ka faa'iideysanayno waa inaan ugu darnaa cilmiga maadiga iyo cilmiga diiniga labadaba.